السلام عليكم أصحابتا maanta waxaan rabaa inaan tuso sida la isku diiwaangeliyo Somali courses. Waxaa soo furaysaa marka hore browserkaaga marka hore waxaan noqon balse hadda waxaan isticmaalaynaa Chrome. Kadib anigoo reer website-ka ugu sii jiro halkaana waxaad tegaysaa magacaada furaysaa Somali courses. Kadib waxaad leedahay go. Kadib website-ka ayaa saan kugu soo baxayo. Saa markaad aragtid waxaad tegaysaa meeshaan ay ku qoran tahay register now ayaa taabanaysaa haddaad rabto. Haddaad rabto waxaad taaban kartaa meeshaan kale ay ku qoran tahay sign up. Hadda waxaan taabanaynaa meeshaan ay ku qoran tahay hadda register now. Kadib wuxuu soo qabanayaa welcome back waxaas maadaama hore aan u isticmaalay aniga. Kadib waxaad leedahay qeybta taabanaysaa ku qoran tahay register now. Kadib halkaan waxaad gelinaysaa magacaaga. Sidoo kale kaas first name-kaaga waaye. Kana waa second last name. Kadib user-kaaga waxaa rabaa inuu noqdo user-kaaga waa magaca dadka ay public caadi u arkayaan. Kadib email-kaaga ayaad halkaan gelinaysaa. For example haddaan email-kayga koobi ayuu yahay oo kaas email-kaasa gelinaysaa email-kaaga gelinaysaa. Haddii aadan wax email la lahayn YouTube-ka ku qori kartaa qaabka YouTube loo sameeyo email ama Gmail waana waa qof walba inuu email leeyahay. Kadib waxaad tegaysaa qaybta password-ka ayaa gelinaysaa. Password-ka waa laba marna ku celisa lagaa rabaa marka inaad iska ilaaliso waa si aadan u khaldan. Kadib haddana qaybtan ayaa gelinaysaa. Kadib waxaad leedahay register aad leedahay. Qaybtan waxaa ku soo baxayso password-kaaga waa inuu isku ekaadaa. Marka password-ka ayaan moodaa inaan muxuu ahaa Zoom Maryam aan khalday. Koobi ayaan ka hayaa koobi aad soo dhigi kartaa. Kadib paste ayaad leedahay haddana kan kale kana paste ayaad leedahay. Kadib hadda register ayaan lama diidi karo oo kaas user bereska leh you are already logged waad ku jirtaa buu dhahay. Halkan waxaa ku qoran oo ahay samar ku soo baxo saan ku soo baxo halkaan taabanaysaa loogada Somali course. Kadib hadda koorsada bilaabi kartaa koorsada for example koorsada computer diyaar ma u tahay inaad wax barashad hay'adinta marka hore fiirsanaynaa macashka ku horeeyo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuhu. Soo dhawaada koorsada computer basic asla qaadan doonaa cashirkeena ugu horeeyay introduction to computer. Cashirkan waxaa doonaa hadda computerka ayaa ku qaadanayna waxaan ku baranaynaa waxaa start learning. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuhu. Soo dhawaada cashirkii hore waxaan maray data storage ayuu maray maanta horena ka bilaabno diinayna ka bilaabnayo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuhu. Waa sidaas la isku diiwaangeliyo. Kadib markii markaad casharadaada waxaad qaadato haddii lacala password-ka aad garan weyso ama mar kale aad banaanka uga baxdo for example waxaan dhahaynaa log out baan dhahaynaa waan ka baxaynaa. Kadib markaan ka baxno haddii lacala waxyaalahan inoo soo bixi waayaan qaybtaana my account ayaad leedahay. Kadib sign in-kana kuu soo baxaayo saamulka kuu soo bax sign in-kan haddii aad garan weyso for example password-kaaga waxaad leedahay lost password aad leedahay. Kadib email-ka ayaad gelin kadib receipt ayaad leedahay. Kadib waxaan fiirinaynaa Gmail-keena inuu noo soo dhacayo in kale waa kaas soo aragtaan password